وحفلتي لوقبتي مدحويني مشرح عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي لبدا كون لباتن لبدا بشي صدحاد ودن كان أستراليا مقالة ملبون oo aynan u kala hadhin jaaliyada wadankan oo ugu tahniyadeynayay halgamaha weyn una taagan sagada madaxtinimo ee wadanka Soomaaliya dhageysi wacan dhamaantiina مناسبة تاجيريدا مشرح مدحويني هجامية حزب ودجير حلبان عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي وحنا ذيك جمع العليا وقتي غالية يسيد ونعكسن أبنا جلسة قشان مناسبة تاجيريدا وحنا يريا وكيل كحزب ودجير دلك أستراليا أنا قدوميها جالية قلب ذوك دلك أستراليا مدن عبد القادر غريب ديكلا marka hore ilaahay baa mahadle kulankeenan isugu keenay marka labaad waxaan mahadcelinayaa qiyaartii kulankan soo abaabushay inta kadib waxaan mahadcelinayaa dhammaan marti sharafta qiimaha ee ka soo qayb gashay kulankan odayaal gabdho hooyooyin wiilal intaba waxaan ku salaamayaa qof walba masabkiisa iyo magaciisa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سلام كبعدي كل أنا ريمو دجير يكوحدودا عاوا هذا الكوافورتان كلي أنا هوش واحد أطلع ومرت شرفك أيكم بنجيس دونا إلهي إذنك أنت أكذب وحن إذن كعب سنة يا دور لها بيس كسارن إنه بالقفل بافيرشو لو جد أيام كنت مروح عن أنا حس بجيل إنه سنة حسب الدورشة كلير وقبل مركز الدورشة لما كان اسكبها وحنا إنه الدولة مالو تيجي سنة تحضر سنة هاي إنه الجودة ضد كذا كقبض أو النهضة ومعارض نمذج كتشوجا وشرع الدستور إلى الشعب دولة دنا حتى الله اسكت قبل ما عرفت يسوي حتى ليلا أي سجين إلى يستقبل كتشوجا واللوجيا مركي لبعضنا وحاربنا إن الفيريو قف كي ما عرفت أفكارت إيو عرفت حسب جا ورقاه بقريين وحرنا قفكي ماركتي سياسة الدول دولار عبد ما عوجرو إنه أغريها الدكتور عن أو نقص بيرو أنت كذب سوى كلام حرنا إن معمول نقول ده مشرح أمريكا ماريو أدي وروح بدني هاي وقف معي هاي والله ما تابتان واحد يوريك عن عدة أوارث بمارك دوتو لكن مارك أو حبوا كتير كلته نقصت كلو لي ماذا مالك فريستان نكي ما بالله علمي وأقولنا last 5 years سنة صار واحد عوام وأقولنا واحد كبر لقاط كقروح بدنا الدولة تشوف تبشر وحلي وفلمات رجسوا شقيي يكوي كلامه هالمرة كرسي لقاط واحد كده عوال لسوقي وجه كان يلتبت واحد بده شيء استريد أول واحد تجارب قبيلوين كي واحد لو تجارب قبيلات تحسب وذكر إياه عبد الغيب دي اللي لو تجابيه معناها قبيلوين كأيام مركز أود مقطع هاي أود سيني سبرد بهالذكر أيام لا تصي لبرتو واحد اللي تجابيه
shacabkii la tijaabiyey waxa lagu tijaabiyey jawaari iyo waxa lagu tijaabiyey ninka la yiraahdo isha qalab dhagax ayaa lagu tijaabiyey markay arkeen shacabku inaysan meel u socon sharciga waa la duuduubay iyo dastuurka jaabka lagu tagay wax kan beri leeyahay noqdeen ninkii la rabaa lagu dilay ninkii la rabaa lagu xiray ninkii la rabaa lagu qabtay ilaa iyo haddana waa sidii oo kale waan ognahay maamul goboleedyada Puntland Jubbaland iyo Somaliland wana qabatayna la galshay way dhabaxa suuqa ka dhacay dadkii musharaxiina wali u xiran 500 oo dhalinyaro meel lagu sheegay lama yaqaan hooyooyinkii dhalay waxay ku hoos jiraa sayraha ay murugo iyo ciil la jiifaan meel cid ay weydiiyaan cid kala hadlaan lama yaqaan dadaan nolosha lagu leeyahay ku waa loo ogayaa gabadhii iraan daliil iyo familkeedu waa loo yahay meel alla meel ay ku dambeeyeen iyo cid laga hadlaa ma jirto dalka asaga madaxweyne ka haddana wax uu ka ogyahay male waa dhagala waxaa laga rabaa yaa laga rabaa qofkii markii la doorto gurigiisa sharcigii iyo dastuurkii iyo dhaqaalihii waddanka uu la galo yaa laga rabaa inay ku daba qabsadaan inteena laga rabaa inay daba qabtaan oo yidhahdaan warniyo ballanqaadka noo qaada kan maaha warniyo sharcigii lagugu talagalay maaha war dastuur kuma jirtid haddii aan wax kale la samayn karin markii qaladaadkaas hadda afartaas qalad markii la sameeyo sharciga la qaadanayay dadku waa hadli diidan wayna ku qanacsanaayeen haddii laga qaba lahaay oo dadku bannaanada soo istaagi lahaayeen niman la yidhaahdo qayladhaan waxay yidhahdeen xaafadaha ka soo wada baxo sheegta xubintiina ilaa aad xaqiinni heshaan ayaan la xagaldaacin haddii dadku sidaas dhihi lahaayeen oo warkaas rur yahay waxaa dhici lahayd at least waxyaabaha dhacaya waxba u ka xishoo lahaa madaxweyne dadku maamulka jooga u ka xishoo lahaa wax badan u ka xishoo lahaa laakiin wuxuu arkay nin qabiil wuxuu fiirinaya iyo nin qarash fiirinaya maana inaan qof kale qadiyo taageerta isa jiro marka waxaan leeyahay waa la wada ogyahay waxyaabihii dhacay boogihii dhacay ciddayda ayaa loo baahan yahay xisbiga wadajir iyo gruubkiisu waxaan ognahay problemadii dhacay ciddii xalileed waa ayaga sababtoo liiskii 5 sano wax alla waxay dembi galeen annaga u baahan qolo kale u qoran tahay ma jirto sababtoo inta kale waa ka aamusay inta badan liiskoodii annaga hayna wixii dhacay marka dhibanayaasha annaga noo imaan doonaan waxaa laydinka rabaa inaad xisbiga wadajir taageertaan haddii aad taageertaan waxaad ogaan doontaan ilmihii 500 hooyooyinka ooya akhbaaray heli doonaan ilmahoodii meesha ku sugan yihiin keeni doonaan odayaasha madaxweynayaashii hadda hirshabelle labada madaxweyne shariif iyo xasan 4.5 waxay ka yimaadeen hirshabelle dadkii oo daad qaaday dabcan in aadaan jidkaa laga xiro maalin dhawaad waad arkayseen jawaari iyo ninka la yidhahdo shariif xasan laba nin oo koonfur galbeed uga kaaraan badan ma jirto wixii jidkaa loo garoonka doorashada ma geli kartaan galmudug u malaymaa nin indhaqasha ka karaama badan uu ku jiro ama ka darajo fiican ama ka darajo badan oo hadda nool aniga ma aaminsan inuu jiro wixii ka dhac waa looga Puntland 10 la isugu diray xasuuqi ka dhacay dhuusmareeb waa la wada ogyahay waxaasoo dhan gado hadda problem jira waxaasoo dhan waxay u dhacayeen xaqu jacayl ballantii hore oo dhan waa laga wada baxay marka waxaa la rabaa haddii aadan adinku markaad qofka xilka siinaysaan aadna ka fiirsan oo meel kale la fiiriyo haddii uu qofku waa qadami karaa damaci xaqu korwaykaan annaga xataa tii dheer cadwaa waa u dhimatay ragna waa u dhintay ragna u dhimatay marka xaqinka waa la wada rabaa laakiin waxaa la rabaa qofku ballamada uu qaado iyo dastuurka inuu isku shaqeeyo dadka inteena marka maxaa laga rabaa inaan dastuurka ka waardiyeysano ballanta qofku qaadan shalay kanma aadan samin hadda wadajir waxaa lagu xataa warnimo iyo adinka dowladdu waxa xunay samaysan maaragtaan waxa qayr kale samaysan maaragtaan war dadka iyo annaga dowladda lama qalna dadka waxaa kala dhaxaysa nimankan dowladdu madaxdii xukunka iyo ballanqaadka ay sameeyeen in ay meel ku sheegaan oo ay si sax u shaqeeyaan oo dimuqraadiyadii keenaan oo waxaas gaar laakiin annaga waxaa naga dhaxay oo kala dheeriya nimankan waa la tartanay waa naga been badsheen waa naga qaadeen haddaan ka aamusnaano mar kale inay kula ceshadaan ka shaqaynaysaan marka taas ma waa diidna annaga waa inaan qorno wixii nimankaan sheegeen inaan qoran lahow oo hadduu ninkaan ceelaan dhisay yiri meel dhexe uga tegi andra saaxiib intaana ka dhiman dhamaystir risiidkeen wax kale annaga ku dheeri ma jirto marka risiidkaas aan weydiinayna oo kale هنقول يا ابننا أنا واش خذني معارض نشغلتي سحولة هدوس الدولة هاي قيمتك كلام معارض قيمتي الدولة ده نقطة ما قيمتك كلام معارض شغلة المعيد هاي إن الدولة ده نجستن إن كرسي كذي ضد كانوا شغلس صوت هذا بارك هذا لا يمكن كجري وهي بدنا ماشي لقى سمير الليبرال في مصر لكن برشة إيساري يا واحد وين هذا مرة على كلام على الصومالي وحال ذكرها إن عاد كفير ستان قفك على دوران إنسان وإني رجيم جيج
إلا بدلوا حب جو وواحد لو باين صوت واحد لو يدك وهبك وقاطي أولاد أي كمان هدر عد كذي كرتان بجد هدر الحلم بسرعش سو نمان كبرك عندما نظر دورتي وحنو باغا إنيسن دجال سكرية ويسن كشقين وهرتو كم في السوال اللي كتير كسر صاران في السوال اللي كتير إنك كسر صاران هو مهم نيك كلام يجيني إنك كفر صار هو مهم أنت اسكندب مرة وين أقول سيد هذا هدي أنا ما ركتي فرخالية حسب أو صح واحد اسكال نبى اسكال أنا اسكالي لكن واحد يشيء واحد بوجه داوع هاي عدة دقيقة سوان عدة دقيقة كتير أنا أمزن سيد تردد أديك أيام واحد اللي ذكرها إن بعدكينا نور بنما حلوان الله أولا كيسة نور بنما يغنى عدكينا إن أتكو عديسان عدة أبريل حسابتين كرتان نما يقولوا كوحنا كسر بحين والله هذا بدي بكبر كلام كوحنا لسان وحتى اللي يغنى أو نور على ويدونا مركا يعني ورا كوس الداران مرتشرفت أيها هذا الكاسكرة وحلا ذكرها عدكينا عالم كامل عداية عدة رتير بعد عدكينا عالم كامل عداية عدة رتير على ذكرها هذا وقت كباتو يتقرر عليه سؤال مركي استشوى حد يجري كبار قوتها اللي بحجري وهذا كرسي أنا ما هذا واحد يجري كرسي خلص على مسار بعد يا صوفك والله حري والله دورتي وأنا كنت بالستيدن حتى سنة كان وعرنا وقلت أنت تقرر عليه أنا كرسي كبار كان نروح نروح على مساره نروح حتى مرة بعد مركا دور يا مروين هذه ما زنتين هذا هو هذيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه ما زنتين waxaan halkan ugu yeerayaa ugaas maxamed walaad sidni bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan dadweynaha sharafta badan marwooyin mudanayaal gabdho wiilal dhammaantiin kasoo qayb galay xafladan waa idin salaamayaa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي وحنت على هاي أنا هاد عليو تذكر السوق الجيبي نقال صوت هيك على حفلة دان سير شرفت له الناس الجيبتين آدي يعني كما هاد علينا تكلم عن تعالى أنا هاد عليو تذكر حفلة دان سوق قبل وشغال بدني جوي بدن أيجنا وحنا هاي آتي أيام هالسنتين مناسبة دان ورحت بدن ولسوا أجاسمي وحاولوا طلق علي مشرح مدحوينه حديبان رجامية حزب ورجل عبد الرحمن عبد الشكور مرلبات آدي ما سنتي سيدا ما وصل حب الشيء وحنجعلها المركب وحير إن أنا كتبت أنا فروتان اللي يصير لكن حوجات دربي وريحانيا وحنربا وحير إن أنا كتبته تاريخ عبد الرحمن عبد الشكور والسمع مشرح مدحوينه أهنا حلبان أهنا لقيامية حزبي ورجل عبد الرحمن صار كل صعوبتان با Soomaalidu uma baahna Cabdiraxmaan taariikhdeeda waqti badan in looga sheekeeyo waa wada taqaaniin kuwa gudaha jooga kuwa dibadda jooga waa Cabdiraxmaan waa nin aad loo yaqaano taariikhdiisa Cabdiraxmaan wuxuu soo galay siyaasadda Soomaaliya 15 sano ka hor asoo nin yar ah oo Ingiriiska jooga ayuu halkaas ka soo baxay halkaas oo ka soo bilaabay siyaasadda jagooyin sare ayuu ka soo qabtay dawladdii meelgaarka ahayd ee tiimkii Sheekh Shariif anigu ilaahay hadda waxaan aaminsanahay inaan ka bixin meelgaarkii marka jagooyin sare ayuu ka soo qabtay arrintaas dawladdaas ka bacdi waxaa ku soo xigtay tiimkii Xasan Sheekh asagana wuxuu ka ahaa nin advisor oo madaxweynaha advisor u ah tiimkii farmaajo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur wuxuu noqday mucaarad
wuxuuna furay xisbiga la yidhahdo wadajir ilaa waqtigaas wuxuu ahaay 5 sano lasoo dhaafay wuxuu ahaay nin mucaarad ah oo isku daya inuu saxo qaladaadka dowladda waxyaabihii loo idmaday dowladda oo ahay dib u heshiisiinta federalismka maaragtay ummadii in la isku raadiyo arrimahaas ninka la yidhaha cabdiraxmaan cabdishakuur dhibaato badanaa kala soo kulantay waxaan jecelahay marka inaan derbiga aan sii riixdo inaan 3 qodob aan yara xoogaa dul istaago qodobka koowaad wuxuu ahaa oo dulmiga ahay oo aad iyo aad loogu dhigay ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan cabdishakuur arrintii badda waa la socotiin arrintii badda executive-kii dowladda oo ahay madaxweynihii prime ministerkii arrimaha dibadda waxba lagama weydiin cabdiraxmaan lagu shaabadeeyo la yiri bad buu gatay qoloyinaha badii waxay ka dhigeen neef xoolaa oo inta lasoo qabto suuqa la geeyo la gato badda saas laguma iibsan karo waa arrin aad u ballaaran waaye cabdiraxmaan arrintaas dulmi badan baa lagu geystay dhibaatooyin badan buu ka soo maray laakiin aakhirkii soomaalidu waxaa lagu yaqaanaa dad aan qaadan dulmiga iyo dulliga soomaalidu waa kacday arrintaasna cabdiraxmaan waa laga xaal mariyey cimaamadaa la saaray soomaali weyna aad bay ugu mahadsan tahay arrintaas laakiin qoloyin yaryaroo waxaa jira haddana xoogaa qolada ugu bixiya CPP iyo cayaarka barnaamijyadii qola meelaha weli waxay la taagan yihiin right now ninkii badii u gatay doqonta waxaa la yidhahdaa meeshii lagu dagaalay meeshii lagu heshiiyey ma ogeyn war ninkii waa la xaal mariyey oo ninkii badii waa badbaadiyey ma gadan weli CPP way taaganta waxaa ku soo xigay arrin ayadana aad iyo aad u xanuun badneed oo ahayd assassination loogu talagalay cabdiraxmaan cabdishakuur in lagu dilo arrintaas waxay ahayd arrin aad iyo aad u xanuun badneed dhalinyaro badan oo xoogga dalka soomaaliya ka mid ahay ayaa meeshaas ku dhintay cabdiraxmaan waa lagu dhaawacay laakiin ilaah baa ka badbaadiyey ma uusan dhimanin waxaa dhacay marka beelweyntii oo cabdiraxmaan cabdishakuur ka dhashay maalintaas waa shireen qoladana daba jeexiye iyo kuwa yara sugiyo waa taqaanina beelweyntu ka dhashay waxaa la yidhi arrintaa waa ka fal celinaynaa cabdiraxmaan waa hor istaagay wuxuu yidhi arrintan laga fal celinayo dadkaan waxaan baraynaa waxa la yidhaha sharciyada sharcigu waa inuu shaqeeyaa aad iyo aad ayaan arrintaas cabdiraxmaan ku siinaynaa liidashiimo iyo credit aad u wacan beelweynta uu ka dhashay waa taqaanin beel waxaa lagu xantaaqa waxba ma sheegin arrinta waa iska 4.5 qola dumiska ku fiican inuu ka dhashay cabdiraxmaan cabdishakuur laakiin cabdiraxmaan aad buu ugu guulaystay arrintaas inuu yidhaahdo arrintaa waxaa uga fal celinaynaa si sharci ah ummadana sharciga in la baro waxaa ku soo xigtay arrintaas waa laga aqbalay waa la socotay waxaa ku soo xigtay arrintaas markii la dejiyey oo la xalliyey oo waxaa ku soo xigtay qola oo group oo wadaada ah ma aqaano inay CPP ahaayeen iyo some form of qabiil abaabuli inay ahaayeen ma garanayno waxay yidhahdeen cabdiraxmaan mar uu ka qurbaynayay jarmalka uu yiri muxuu ahay to waddankaana de waa u jiqan waa taqaaniima jarmal la yidhaahdo gabar baa ka talisa gabdhuhu waa xukumi karaan fikirkaasna anigu waa qabaa gabdhuhu waa joogaan cawada gabdhuhu waa xukumi karaan waxaan jecel lahay madaxweynaha soo socda insha allah gabar inaan ka dhigano aad bay ugu fiicnaadeen cabdiraxmaan arrintaasaa laga maagay wadaadadii dilayga ku xukumay war dhibaatada dhacday waa marka arrintaasna waa laga soo gudbay iyadana ayagii yaa kala jabay oo waxaa la yidhahdaa xaqu feerow ka dilaacay ayagii yaa isweerareenoo gurub u kala baxayo arrintaasna cabdiraxmaan ilaahay waa ka soo badbaadiyey arrimahaas ayuu soo maray cabdiraxmaan cabdishakuur musharax madaxweyne 5 sano oo lasoo dhaafay waxaan jecelahay marka waa sheegay arrintan furitaanka la siiyey laakiin xoogaa derbiga iska riixday waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo warkayga anoo soo gaabinaya
inaan u diro baaq waxaa la yidhaahdo baarlamaanka soomaaliya aqalka sare iyo aqalka hoose aqalkii sare waa lasoo dhameeyey waa diyaar golihii shacabka waxay ka hadsan yihiin isagana waa lasoo dhamaystiri doonaa baaqa aan u dirayno marka waxaa weeye golaha labada baarlamaan ee aqalka soomaaliya in ay doortaan gacantooday ku jirtaa mustaqbalka soomaaliya ayaa gacanta ku haya nin dalka u hiiliya diinta u hiiliya sharciga u hiiliya sida cabdiraxmaan cabdishakuur oo kale dardaaranka aan u diraynaa waxaa weeye baarlamaanka labada aqal waa taqaanii ninkaa dooranaysid waa cabdiraxmaan cabdishakuur intaas haddaan kusoo kaabiyo hadalkeyga waxyaalo badan ii xasan laakiin waa derbiga sima reexa karo aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa saaad uga soo qayb gasheen oona soo ajiibteen mar labaad soomaaliya ha noolaato ha israacdo ha tooso wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xafladana waa noo furanta markan waxaan u yeerayaa awaysi muxiidiin oo ah gudoomiyaha jaaliyadda koonfur galbeed ee Australia. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha gaar ahaan dadkii soo aasaasay xafladda quruxda badan runtii caawa halkan waxaan iskugu nimid inaan taageerno ninka la yidhaahdo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdiraxmaan cabdishakuur warsame taariikhdiisa waa laga sheekeeyey wuxuu ku dhashay magaalada buurburte meeshuu kusoo barbaaray ilaa iyo secondary meesha uga soo baxay kadib jaamacad wuxuu galay mudaan ku taalo oo International African University la dhaho wuxuu ka soo qaatay bachelor degree oo law ah kadibna wuxuu qaatay bachelor mataqaana master degree wuxuu ka soo qaatay waddanka Malaysia University of Malaysia ayuu ka soo qaatay kadib wuxuu ku biiray ama ka mid noqday waddanka Ingiriiska waxyaalo badan ayuu ka aasaasay group la yidhaahdo Somali Content Group ayuu ka mid noqday chief editor wuxuu ka noqday goobjoog howlo badan ayuu soo qabtay marka siyaasadda markuu soo galayna mataqaana waxyaalo badan ayuu dowga ka qaatay mar wasiir qorsheed uu noqday wuxuu noqday ninkii chief negotiatorka ninkuu Kampala Accord door weyn ka qaatay isla markaasna wuxuu door weyn ka qaatay shirkii lagu qabanayay Djibouti ayuu door weyn ka qaatay ujeedada caawa halkaan isugu nimid waxay tahay in la taageero yaa la taageeraya qofka markuu wax qabtaa la taageeraa taageerada nooc kastay noqon kartaa taageero dhaqaalay noqon kartaa caawna si wanaagna lama weydiin anaga taageero dhaqaalayna lama weydiin anaga raashin loogu daray taageerada waxay noqotaa qofka in faataxada loo maray noqon karta taageerada waxay noqotaa qof kasta xildhibaankiisa inuu la hadlo oo yidhaahdo yaa ku habboon meesha xilkan loo dhiibi karaa cabdiraxmaan cabdishakuur waxyaalaha hogaamiyaha laga rabo sifooyinkood ayuu leeyahay maxaa ka mid ah waa nin codkar ah oo codkiisa mataqaana dadka gaarsiin karo waa nin runtii mataqaana haryey ah waa ninaan cabsanaynin waa nin runta u dhow waxyaalaha lagu yaqaano qofka bini-aadinka la rabo qofka haddii la rabo in xil loo dhiibo 3 shay ayaa la fiiriyaa hawshaasi loo dhiibaya aqoon muu leeyahay daacad muu yahay kartideedana ma leeyahay waxaan filayaa cabdiraxmaan cabdishakuur 3daasba inuu ku sifoobi kara ayaan qiyaasi karaa marka ummadda Soomaaliyeed maanta xaaladda ay ku jirto abaarta ay ku jirto cudurrada haya dhibaatada haysa cadaalad darrada ka jirto dhibka maanta ka jiro gobolada ka jirto doorasho oo la leeyahay qof lama dooran karo xilbil ma dhoofi karo dhibaatadan Soomaaliya ku jirto waxaa ka saari kara qof ilaah ka cabsanaya ummadana u gargaaraya oo wanaag ka shaqeynaya aqoon leh cabdiraxmaan cabdishakuur waa nin aqoon leh oo mataqaana ilaahay master degree haysta waa nin xagga diintana ku wanaagsan waa nin mataqaana ummadda isu keeni karo waxaan aaminsanahay in waxyaalaha lagu tilmaamayo qofka leadership lagu tilmaamayo waa nin dheer oo xoog leh oo qurux badan waxyaalaha in America marka madaxweyne la dooranayo waxyaalaha la fiiriyo waxaa ka mid ah ninkan nin qurux badan ma yahay nin jahle miye laakiin qof gaaban oo aweys camal haddaad meesha keensato waa aragtaysa mataqaana
عبد الرحمن ويستاهل وحلكان وقلما ما هاي ما تقال قويل عبين حسن وحققوا لني له عبد الرحمن ودواء أنا أقول ملهي لكن وناقص بدنا يسوق على فيسبوك مقالة كقولة تدي أفكار كانت dad badana ma taqaana igu raac boqolkiiba 98 boqolkiiba 99 igu raaceen odawaa waxa ka sheegaysa waa wax run ah marka anigu odawaa madafkiisu ma dhalan laakiin wax laga yaabo madafkiisu laakiin odawaa wuxuu yahay wax ka sheegay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur maadeer mani laakiin waa nin ma taqaana hadiyay ah dadaal wax badan oo iftiiniyay ummadana u sheegay uuna u qalma inuu maanta madaxweyne ka noqdo Soomaaliya إله وحنا برينا إلى تاجر الفاتحة الأمر قف كاستقبيل بوكل الشيء اللي بانوا لي تاجر وحكم إذا إنا اللبان كان هذا الشيء أتلاقي ونيكو كوها بالعقارة ده دوت لكن كوها بالكهلو بيبو ومدان متقان وحبابي وحيتاي ومدان سوماليا مانت ووطن كلية إن أفريقيا أو متقان لقيه اللي كان انكست إنا مرينس حق بدأ أنا بدأ حق إذا ملك استدعى ست سومال ووطن تاجر ولا سوق لكن حبها أنت كلية وكان في عن إلى هشام وكان في عن سير ويلكلا ذلك واحد دورنا إيه وحراشة إن منطقة التسالي إلى هذا نكاس نوع أفضل نكاس على الأرض مركو حاول رجالي عبد الرحمن عبد الشكور إنه نقضب كي ومدة الحكامية إلى منطقة كتوسي ولا دردار ميا وحنقول دردار ميا وهذا قبل كرين وهدودي أربعين كون نقول السيد فرماجة بين وشيء هاي هالشيء وهذا البان بريت هذا قبل كرين هدين وحسن قبل يدرتي للدنيا بس يا قف كل الدين صون ولاينيا أود هذا ما هالشيء ومتى أوكرجار طويلها أوكرجاري إلى هالترتيس أوكرجار درداري كيو أنت إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة كسوق الكرياشة راجع دمر وحليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلة عاوة وآه تاجريتا اللبان مشرح الدنيا حسبي الدنيا حسبي عبد الرحمن عبد الشكور وصمت أنا عارف سوين معني waxaan leenahay ilaahay haga dhigo guurisa Allah ka dhigo taageerada urur support oo loo baahan yahay runtii anaga codka ma bixinayno laakiin waxaan awood u leenahay dadka codka bixinayo inaan influence ku lahaano oo aan idhaahdo hebel waddanka wuxuu qabanaya ninkaas inta hala taageero runtii haddii maanta xisbiga isu dooranayo way ficnaan lahayd حيري حلوانات الصوي بسدي وحاول أن يلا جبار لها. أنا قلت شخصيا حزب الجلاد ولا لا بدون أي سمية ومجرد من استحدي أي حزب الصدور ما يبي. إلى الحزب لكن نسيب درو تريشيدك بعد الحين قطعي إن سيد الضرب الصدور. مصطفى ما توصل إن شاء الله. يعني وراجي سجل تاريخ صهران لو يشكي يسبر كيسة. محمد عراد خيري صاحبك جاسكا وحبيري إبادة بدر لون جيستي وسكري لكن وكان صبر أي مسلمين أنا كنا وانا يقالنايو إنه واحد منهم وأحمد دميان لكن وين أرسلان ويكون كل شيء وجاسكا تاسع كصحيح وأحمد دميان لكن وين أرسلان صار أرسكروا أي مسلم أرسلين تاسعوا وحوي ماشي كده نحتاج هاي جريدة الصومالية كله فيكتوريا especially ميلبورن تاجر إنه وحلوبة هي عد يعني عد قوام بكرة كم الجنة عبد الرحمن ما وحلوبة هي قرب كما كلية إن أذكر وحلوبة هي لو رأيو كابين روسم رأيو ما يعيش مكسر شيء كده يجود بحلوبة هي مركب كذا غير ميلبورن هاي تاي بكبر الوضع هي جريد وحنا سوتيسن أو ماركتي دبكة يفتو وذاك مركي غيرت ماذا مركو بوري ماذا مركي نين تبدأ لوي ماذا استاجرنا يقف كأرنو جريد جن أوتين استاجرنا مركي هذا هو استاجرنا أو ما شو بيجرو كنتي وانا نجمع دنيا هاي
وأن هذا كنت شخصي هذا هو عبد الرحمن محيري أنت كسرتي دعايته هي مثلا بوزيشن هي كسرتي هبينا كم وصل قاوني حوالي أنا سبيش وكسرته يصير واحد لايو يجلس لماذا مرة كم كان الدنيا ninka waxaa garanaysa waxa kan leadershipkiisa inay adag tahay qofka markii la dacaynayo oo dhan meel laga duqeeyo giba uu sameeyaa laakiin never manta la ciqaabay la qeybay la saamay oo ka tiradahay habeena kama uusan leexanin madhabku uu aaminsan yahay ama ajandaha uu aaminsan yahay uu ku adkaystay uu ku duulaan tagay xildhibaanimada siduu ku soo galay Soomaalida isma uu helayaa laakiin dadkii oo ka dhashay Turkish way u hiiliyeen Soomaalida kalena way u riyaaqday wuuna soo galay waxaa waxay ku turaysaa geesinimo iyo raganimo dheeraad ah inay tahay xukunka waa la wada raadiyaa nina wuxuu ku raadiyaa si jilicsan nina si adag ayuu ku raadiyey inuu ku soo baxo waa soo gudbay reerkii hore waa soo gudbay baarlamaanka wuu soo galay xildhibaan maanta codkiisa la dhegaysanayo waaye wuxuu sii rabaa inuu ka sii dalaco uu noqdo madaxweynihii dalka Soomaaliya uu noqdo kii miday Allah ka dhigo Allah u sahlo waan taageeraynaa waan taageersanahay qodobadiisuna waa maqlayseen oo ah in aan iscadaadinin annaga jaran waa taqaanaan daahir cilmi inna qarshe waa jaran Soomaaliyeed la dahab kaaran iyo ku helay deegaanka ku helay inuusan soo gelin waxaa lagu sameeyey gabar oo maaragtay oo 20 jir ah ee lagu bahdilay inuusan soo gelin oo ah wax aan qaadan weyn runtii una uusan u qalbin wuxuu ahaa geesi Soomaaliyeed maanta waa 60 jir after sano inaan ku soo siinaan rabnay laakiin waxaa loo sheegtay awood intaqana galmudugada loo qorqora ku sheegtay qorqorna awoodda way ka sii weynado meel sare ka tagin farmaajo iyo gruubkiisa ka timid labadii nolol inuusan daahir soo gelin waa nin waxtar ah mala rabo in soo galo meel walbana iyo gobol kasta iyo degmo kastana taas haysato sidii looga xuloobo oo mataqaanaa one man one vote loo gaaro waxaa loo baahan yahay maanta qofkii doonaa in laga fikiro xildhibaanada soo galay oo Soomaaliyeed ama lacag ha ku soo galaan ama calaf ha ku soo galaan waxay qaadan karaan ha qaataan laakiin markii xaqa uu yimaado oo qolofka صندوق الجهد إنه كيف كرات دول لماذا يعني مستقبل الصوماليين يقدر كاس كل اسمها كذا وحنو يريا قدوميها جالية جبلان محمد فوزي أقول مالك واحد تاجرنا تلمام كرا إنه يهي أيارنتي آد معناها نرجع على ذكر متقانا دبانتي أرجع يسجل إلى متقانا وفق ذا الجيريا عبد الرحمن ninkii wuxuu ahaa waddankan doonaa noo tiiraanay 2017 doontii aan wada raacay doontii markay ay socoto badda ay gashay meel laga dabaalan karo markii laba Cabdiraxmaan ka soo tegay ninkii ugu horreeyay doonta ka digay Cabdiraxmaan Shakuur ah doontii waa dhaqaaqday badweynta tagtay Cabdiraxmaan afar sano wuxuu doonta markay kor u kacday markay 100 sano لكن قبطونا جيسكو هاي عبد الرحمن روبر عبد الرحمن وانت يلا ومقع اف الصهر هدي وحول نقضي مرة بكل دقنا نعم هكذا أصحاب الجو وعبد الرحمن وانت دوتا يلا كل دقنا حسا هاتين ما تسيا أوفا لنعا وهكذا نسيا إلا كنت نكون شرفنا ضدك حلبانا واحد دورانا يلا نباق وقدرنا عبد الرحمن وحفلها يا والغة تاريخي معنى تاريخي لكن waxaa la isku raacsiiyay Cabdiraxmaan inuu yahay wax gala nin boontiga maanka isaga taagan nin u qalmo hogaan markaa fiirisid aweysa ku hormaree nabi ilaahi salaam ku baahday in loo keeno balqiis carshigeeda cifid bixiin ana aati tabiin oo jiliya kamid ah wuxuu dhahay anaa ku keena ilaa meesha aad istaagay قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين لو أرموه شكت عفريت وحيرا أنا للحب بدنا هاي من آمن نواهي عبد الرحمن حب ولا شيء هذا وأنا كان حب بدنا مقرسة آمن كذا
waxaa kaloo cabdiraxmaan aqoonyahana nin mataqaana ninkii ka dambeeyey muxuu yidhi oo cilmiga la siiyey ana aatiika qabla an yartada ilayka darfuk iska jiraada ninkan macallin waayo mar qaarkood macallimada u baxsanayaa marka inta aysan indhahaaga ishaada isku xirmina keenayaa cabdiraxmaan muxuu ku sifooyey 3 simood marka cabdiraxmaan markuu horeysa waa nin qawi ah waa nin mataqaana aamina inta aan mataqaana warka helayna maxaa yeelay waxyaabaha uu qorayo mar walba waxaa ka dareemaysaa in ninkaasi mataqaana xaqiiqooyinka uu soo saaro waa nin cilmi leh aqoontiisana mar walba u jeedaa marka waa ninkii doontan noo soo xajinaya hadda doontan dhinacu ka hayay moogtahay doontaas dhib badan uu galay rag asxaabtiisa ha lagu laayay ma garanaysaa isagii baa mataqaana lagu dhaawacay cabdiraxmaan wuxuu mudan yahay marka oo runtii ahaydba marka hore halka u tahniyeyno reer galmudug horta xildhibaan ka dhigay madaxweyne qorqoor iyo asxaabtii kale dadkii ku barashar gareeyey annaga qorqoor meel qaarkood meelo kale isku haysanaaye laakiin hadda cabdiraxmaan ku ammaanayna xaggiisa waxaan leenahay waa mahadsan yahay madaxweyne qorqoor mar hadduu cabdiraxmaan mataqaana ogolaaday in ma garanaysaa uu xildhibaan noqdo waxaan rabaa inaan ilaa dadka soomaaliyeed ee halkan fadhiyo cabdiraxmaan ninkaa loogala taariikheeyey waa ninkaa nin walba mataqaana maanta cabdiraxmaan maqaaladiisa akhriyo uu ka dheehan karo qofka uu cabdiraxmaan uu yahay marka waxaa sida codsigii rag iga horreeyay halkan ay ka jeediyeen in nin walba qofka uu yaqaano uu markaa isaga uu la hadlo si cabdiraxmaan ma garanaysaaye uu u noqdo madaxweynaha mustaqbalka dhow ee soo socda midna waa ka digaynaa waa uga digaynaa xildhibaanada cusub waxaan leenahay doontii weli badda ay dhex taagan tahay iyadoo badda dhex taagan oo laga reebaa inay muquusto ee rabtaa inay muquulato haddana ay soo laabatay rabtaa doontaa waxaa leh lagu soo celina marka horeysa doontaasi annaga waa lagu baabaa waa la arkay qof walba gurigiisa ugu imaadeen marka doontaana ka digtoonaada cabdiraxmaanna waa ninka u qalma oo soomaalida maanta badbaadin kara waxaan ka codsanaynaa aniga oo ku hadlaya dhammaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed jaaliyadan halka caawa ku shirsan afkoodanoo ku hadlaya xildhibaanada cusub iyagoo oo qaabka xataa lagu keenay maanta qaabkay ku soo baxeen waa doorasho lama oran karo laakiin waa iska leenaha waddanka u baahan maxaa yeele wax ka dhib badanaa oo joogo doonba waa meel taagan oo dadka mataqaana hoos gelinaysa mar walba dhibaatada doonta ee keentay naga badbaadinaya marka waxaan leenahay doonta kale hana saarina midaasoo kale hanoo geynina waxaa noo dowrataan cabdiraxmaan cabdishakuur oo kale oo doontaa naga badbaadinaya mar walba saxaad oo muwaadisiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa guddoomiyaha jaaliyadda puntland maslax daahir goore sacabka si wanaagsan بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaan u malaynayaa wixii kaftan ahaa iyo taariikhda cabdiraxmaan u lahaa waa la wada xusay xataa intii yarada ugu dambeysay oo soomaalidu ay tiraahdo golojojiska hadda waxaaba sheegaa weys baa sheegayo waxa kale loo berri baan malaynaya cabdiraxmaan marka koobaad waxaan baad celinayaa maadaama cabdiraxmaan cabdishakuur uu yahay musharax qaran xisbigiisuna uu yahay xisbi qaran dhammaan dadkii soo qaban qaadiyay xafladda tan quruxda badan nucaawa isugu nimid oo dhammaanteen reer australia na furtay ayaan horta aada ugu mahad celinaya oo ugu horeeyo guddoomiyaha jaaliyadda galmudug ahna wakiilka wadajir saaxiibka cabdiqaadir marka xigta waktigoo gaaban waxaan jeclahay anugu ku dheeraan maayo qaybta siyaasadda iyo wixii soo dhacaye waxaan rabaa wax yar inaan taabto arrinta xisbiyada oo runtii la odhan kara cabdiraxmaan wuxuu ahaa ninka ugu codka dheer oo ummadda soomaaliyeed aada iyo aada u gaarsiiya wanaagga ay asxaabtu leedahay sida aynu la soconno xisbiyadu 3 qodob oo yarar baan rabaa inaan ka soo qaato asxaabta ama ururadu waxaa la odhan karaa waa iskeelka keliya oo bini aadamku ugu kala badbaado tusaale haddaan idin siiya waddanka aynu joogno australia haddaan xisbiye ka jirin way adkaan lahayd in qofka Perth jooga iyo kan Brisbane jooga iyo kan Melbourne jooga ay aragti ku midoobaan laakiin waxa hadda sahlay in qofka Brisbane jooga iyo kan Melbourne jooga ay aragti ku wada shaqeeyaan waxaan malaynayaa inay xisbiyada tahay marka
taasi waa midda midnimada oo xisbiyadu ay keento ay meesha ka saarto wixii bulshadu ay isu kala qaybin lahayd marka annagu hadda gobolaba ma haysan laakiin waxaan u malaynayaa qabiilkaa meesha ka baxayo kii garowe joogay iyo kii beledweyne joogay waxaa laga yaabaa inay wadajir ku midoobaan oo aragtidaas ay wada difaacdaan midda kaloo aan aaminsanahay xisbiyadu inay ku fiicanya waxa weeye waxaa lagu bartaa dowladnimada sababtoo ah qofka xisbi ka soo bilaaba wuxuu baranayaa shaqooyinka dowladnimada xisbigu waa dowlad yar yacni ololihii baa ka socda qof baa lagu dhex dooranayaa waa loo tartamayaa xoghayn bay leedahay maaliyad bay leedahay wax walba ay leedahay marka waa fursad aad iyo aad u qaali ah oo qofkii ururada soo mara ama xisbiyada soo mara waxaa u fudaanaysa inuu siyaasadda qaybaheeda kaliya hogaaminta dalka uu ka qayb galo ayaan aaminsanahay midda kale saddexaad waxa weeye ururadu waxay sahlaan in meesha laga saaro aragtida qabiiliga ah ama shaksiga ah oo inta badan ay ku lamaan tahay cadiifad sababtoo ah aniga hadda cabdulqaadir oo kale baa waxaanu isla nahay wadajir marka intaanu dee tuulooyinka nagi iyo reeraha nagi soo dhiganay ayaanu xisbi wada riixaynaa marka waxaa meesha imaanaysa in aragtidii wax lagu cabirayay ay noqoto aragti xisbi oo qof kastaa dantiisa uu ka arko marka dhalinyarada fursadda uga furan oon aadka ugu rabeen caawa uga faa'iidaysto ugu dhiirigeliyo waxa weeye qof dhalinyaro ah inuu inta weynaado siduu nin u daba socdo markuu duqoobalayaa reerka wax u garta mooyaane way adag tahay nidaamka soomaaliya ay ku shaqaynayso inuu kasoo dhex baxo laakiin hadda qaybta xisbiyada haddii laga shaqaalaysiiyo waxaad moodaysaa in fursaddaasi dhalinyaradu ay helayso marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa arrinta xisbiyada u kaca oo xildhibaanka ama musharaxa caawa aynu isugu nimid oo hormuudka xisbiyada waa inaynu wada istaagnaa oo wada taageernaa talabaad wax yar haddaan ka taabto arrinta musharaxa xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame marka hoggaan qof loo xulay laga sheekaynayo ibni aadamku laba sibay wax ku cabiraan marna waa wax la wada wadaago oo ka Finland joogiyo ka Kenya joogiyo ka Soomaaliya joogo uu hogaamiyaha ku xusho waxana waa wax khaas ah waxay markaa aniga ila tahay qaybta guud oo la yiraahdo deeqsinimada iyo geesinimada iyo codkarnimada iyo furfurnaanta iyo cabdiraxmaan deenu leeyahay aragnayo waaba ninkii 5 sano hadda la soo dhaafay baraha bulshada siyaasiyiinta Soomaalida ugu magac dheeraa uguna hadal haynta badnaa aan arkayno wixii ku dhacay marka inuu dulqaad leeyahay iyo inuu adkaysi leeyahay iyo inuu aftahan yahay soo aragnay aniga samid baa igu lamaan oo aan aaminsanahay in dadkoo dhan ay fiican tahay inay dhuuxaan taas waxa weeye hoggaanka sidiisa marka laga soo tago shakhsiyadda waxaa jira wax la eego inuu huwan yahay haddii aad marka ka weydo intaas waa inaad ka dareerto sababtoo ah dadku cirdi bay leeyihiin cirdigoodana waxaa noqonaya dhaqanka iyo afka iyo diinta noqonaya cabdiraxmaan waxaan aaminsanahay inuu yahay siyaasiga keliya Soomaaliyeed ee markuu wax cabirayo qaata aragtiyada islaamka markana waxaan u yeerayaa Ahmed Hassan Dalac wakiilka Somali State of Australia. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan khiyaarta ka soo qayb gashay xalfadan gabdhaha waasiyada garaadada uqaasha iyo aqoonyahanka iyo dhammaan guddoomiyaasha jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolladooda kala duwan iyo guud ahaanba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib waxaan u mahad celinayaa si gaar ah jaaliyadda guddoomiyaha jaaliyadda Galmudug ahna guddoomiyaha xisbiga wadajir mudane cabdiqaadir oo lagu martiqaaday xalfadan lagu taageerayo walaalkeen musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur isagana si gaar ah ugu mahad celinayaa iyo dhammaan ciddii kala shaqaysay xalfadda quruxda badan dadkii soo agaasimay iyo gabdhihii kasoo shaqeeyeyna waa u mahad celinaya waxaan leeyahay wanaagsantiin intaa kadib runtii anugu waxaa la yidhi xigmad Soomaaliyeed baa waxay dhahdaa nin kaa hadli og hadduu kaa hor hadlana hadalkii waxba kuma reebin hadduu kaa daba hadlana wuu ku ceebeeyaa oo macnaheedu ay tahay dee ninku wuu ku xaalufinayaa marka hore wuxuu wasii dhammaynayaa hadduu kaa daba hadlana iyadana waa ku ceebeynayaa marka ragga khiyaara iga hor hadlay oo runtii taariikhda Soomaaliya
iyo taariikhda aqoonyahankana maxaa u taageerayna la yaqaana aanu laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaabaha cabdiraxmaan cabdishakuur runtii aanu aqoon gaara uma lihi laakiin Facebook friend baan la ahay oo halkaasaa kala socdaa adduunka maanta meel buu wada fadhiyaa oo cidaan is aqoonin ma jirto oo nin kasta caqligiisa iyo aqoontiisa Facebook ayarbu kusoo tuuraa ama Twitterka halkaasaa laga yaqaanaa nin capacitygiisa halkaasaa laga arkaa marka aqoon badan oo tii hore hadda adduunku uma baahnaba annaga waxaan ku taageeraa anuu shaksiyan iyo kajaariyad ahaan iyo inteena fikirka aragtida siyaasiga ee cabdiraxmaan cabdishakuur uu xambaarsan yahay waa mid ku salaysan dhaqanka soomaalida iyo diinta islaamka iyo aqoon xigmadeed oo uu leeyahay dhaqanka soomaalida taas waa qodobka kale waxaa weeye lahaansho inuu wuxuu rabay inuu abuuro ka duwan waddadii siyaasiyiinta soomaalidu ay qaadaysay mid ka bedelan inuu qaado oo maxaa ka mid ah dadka Soomaaliyeed siyaasadda ay leeyihiin buu damcay inuu abuuro cabdiraxmaan cabdishakuur sanadkii haddayna soo dhaafay wuxuu sameeyey sanduuq ilaahay wax ku soo rita Soomaalidu waxay rabtaa siyaasi ayna maal gashanin inay haddana eedayso ama qadar lacag ka soo qaatay ama imaaraad ka soo qaatay ama Mareykan ka soo qaatay nin walbana ninkii wax gashaday uu shaqeynayaa cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu sameeyey siyaasadda ka bedelan sanduuq buu furay ninkii $100 ku darsanayay kii riyaal ku darsanayay kii $100 ku darsanayayba dhawaan si aad ila xisaabtanto sanduuqa ku soo ritay siyaasaddaasi hadday hirgasho dhammaan waa kantarooli lahaydeen intiina waranaga wax ku dhibin waxna inoo dhibada odhan lahaydeen waa waddo runtii aan islaahay gacanta ay ku soo noqon kartaa siyaasadda Soomaaliya haddii la sameeyo waa aragti muhiima fishinkaasi oo ninkii hadduu si ugu guulaysanina siyaasad ahaan kalow inaad dadka Soomaaliyeed halkaa ku haysto waa muhiim waa qodob muhiim ah qodobka kale isna cabdiraxmaan cabdishakuur aan anugu shakhsiyan islaahay waa hogaamiye aan u jaleeco dhanka haweenka waxaan u yeerayaa xaawo cabdiqaadir deele gudoomiyaha Somalia Australian Women Health Care cabdiraxmaan horta aniga ma aqaan been sheegay laakiin TV-ga ka arkay inuu nin Soomaaliyeed yahay oo xildhibaan ah dowladnimadana u taagan marka ilaahay ha siiyo ilaahay waxaan ka barinaa hadday khayr isaga u tahay Allah ha siiyo taasaa ilaahay ka baryeena waana nin samir badan sidii hadda la isku raacay dadkii oo dhan isku raaceen waa nin samir badan aad u samir badan god waxyaalo badan baa dhageystay oo laga hadlaayo marka Soomaaliya oo dhan waxaa la rabaa ninkii wax u ah oo wax u noqonayo inay doortaan dowladnimadu dheerdheer maaha dowladnimadu waa axyaa wadan dowladnimada maanta Soomaaliya taala ilaahay waxaan ka baryanaa mid khayr qabta oo annagoo dhan nasinta oo qabiilka naga reebta oo hal mid aan ku noqono isku jeclaana Allah noo keeno dowladnimadu waxaa waaye waa axyaa wadani dowladnimadu waa qaali dowladnimadu waa qaali shakhsi ma laha Soomaaliya oo dhan baa leh odayaal baa leh habraa leh dhulka caawa dhalanayo wax ku leh wadanka calanka wax ku leh marka ilaahay waxaan ka baryanaa hal cudur baan nahaye bal horta qabiilka Allah naga reebo ilaahay waxaan ka baryanaa annagu gabdhaha haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed qabiil shaqo ku malihin laakiin ragga xaqa Allah tuso ragga Soomaaliyeed xaqa Allah tuso ilaahay waxaan ka baryanaa xaqa Allah tuso waxaan kaloo ka hadlayaa meela aad ma haysan ayaa dhawada China Australia u dhaaratay beeri ma sheegayo Australia Soomaaliya waa iska taqaan waa iska hadlayaan China soo socotay maxaa tahay xagee aadnaa annaga dhulka yagina cagacadaana uga soo baxnay ilaahu nagu keen ilaahu naga qabo China maxaan kaloo sheegay marka qof bilow aadniya oo meel degan wadankiisa hooyo dhulkaaga hooyo aad ku dhalatay oo dhaqankaagi ah aad isku haleyn karin caawaad ka baqayso oo leedahay aad ama wax dhacaa inkastoo hadda ay runta hadda waaba run tahay marka walaalayaalow Soomaaliyeed xildhibaan iyo
madaxweyne iyo kulli waxaasoo dhan maaragtay waa inaan runta u sheegnaa waddankeena waa inuu noo hagaagaa muhiimku waa inay dowladnimadu dilaacdaa been min ii sheegay maaldhow meel shir oo la tegay baa nin gaal ay soo ag fadhiista weriyo from wiil kasaar soomaalima maqasho weligaasu yahaa 60 minute aan ka shaqeeyaa barnaamij 60 minute xagga soo baxay qani baa tihiin buu taajir baa tihiin xoolaad leedihiin waxaad leedihiin bad waxaad leedihiin webi waxaad leedihiin beri dahab batroolka adduunka la isugu tegi doona adduunka waa soomaaliya yidhi maxaa isku haysatiin waxaan ku irin waxaa isku haysana kuma sheegi karee 60 minute international waxaa tahay tv inta dhex istaagto waxaad tiraahdaa soomaali waxay isku haysataa aniga ha ii sheegaan wuu qosolay marka ummadii oo dhan hadday sheegayso dhulkeenni qani inaan nahay maxaa cabdiraxmaan hadduu nin fiican yahay waa wiil haddee soomaaliyeed waay waa nin dhalinyaro ah dowladnimadu dhalinyaray ku fiican tahay nin wax soo bartay nin caqli leh nin ummadda isku wadi kara bay ku fiican tahay maxaa loo diidaya haddii la doorto ilaahay ha siiyo hadday isaga khayr u tahay allah siiyo khayr hadday isaga u tahay allah siiyo marka waa taageeraynaa gudoomiyaha xisbigana waa mahadsan yahay aniga ugaaska isoo casumay ugaaskana waa mahadsan yahay haddee wakaa ilaahay waxaan ka baryaynaa wixii inagoo dhan khayr inoo ah ilaahay inuu ku kulmiyo reer australia halbaa markaynu leeyahay hadda dowladdii ka soo baxnay cabdishakuur waa reer australia reer australia markaan wax qabno ama saan oo kale hadda dowladdeennii aan taageerayno musharaxeenni aan taageerayno nin nigeriano minister ah yimi tv-ga waa ku aragteen nin ma nigeriana oo minister ah oo dowladda nigeria ka tirsan waa la casumay ministeradii baa yimid dowladdii baa timid booliiskii baa yimid waa la soo dhowey annaga markaan wax qabno maxaa annaga keliya lagu koobay soo dowladda australia kama dadka shacabka australia soo kama mid yihiin soo dadkooda la soo dhaweynayo kama mid yihiin waxaan u yeelayaa markaan ugaas axmed naasir khaliif dhalinyarada dhammaan aad baan idiin wada salaamaya wadaqameedku waxyaala badan oo tookaro badan marar badan galaha dhinacaas waxaa kaloon siyaarad idinka wadaa salaan ugaas cali ugaas maxamuud ugaas baangulay oo dalkay ah oo magaala magaciisa ku hadlaya ah oo salaan aan idinka wada salaantaana iga gudoomi ma aanan moodaynin inaan hadalka ku jirin hadalka waa hadalka badan ma aanan maayo aad iyo aad waxaan usoo dhaweynayaa musharax xildhibaan musharax madaxweyne gudoomiyaha ururka wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur oo u sharaxan inuu dalkeennii hooyo ka badbaadiyo dhib iyo amnixumadii ina haysay una horseedo wanaag iyo kala dambeyn xasilooni aad iyo aad baan arrintaa ugu taageersanahay una soo dhaweynaya dhammaan sida ay odayaasheenii iyo dadkeenii hore hadleen ay sheegeen waa nin mudan cabdiraxmaan cabdishakuur waa geesi waa codkar waa hiiro waa birlab waa nin sabir badan waa nin istaahila xildhibaanada soomaaliya waxaan u diraynaa baaqa dalnahay jaaliyada australia ama melbourne in ay doortaan xildhibaan musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur oo noqon doona insha allahu tacaala next president of Somalia insha allah waxaan khudbadihiisa iyo sidaa haddaba aynu ka dhegaysanaynay wuxuu aad iyo aad halkaa uga dheehan karnaa inuu yahay nin ka soo bixi kara dalka soomaaliya ku soo celin kara nabad iyo xasilooni iyo wadajir iyo kala dambeyn lowan oo dhan haddaan adigu kollay odayaal dhaqameedkan kamid ahay ninkaasi iyo xildhibaanka iyo madaxweyne musharaxu meeshu ka soo jeedo iyo xildhibaanada la safan oo iyo dadka la safaran kamid ahay wax weyn oo dadka soomaaliyeed usii waxbaa noo sii dheer waxa naga dhexeeya aadna arrintaas waan u taageeraya
qadiyada soo maray oo aan aad u soo dhaweynayo geesinimadiisa iyo Soomaali sida ay dhexdhexaad ugu yahay ayaan maaragtay aan ku taageeraynaa maaragtay Soomaalinimo intuu ku taagan yahay waxaa ka mid ahayd qadiyadii qalbi dhagax oo Soomaali oo dhan ka dhawaajisay laga wada gelgeshay saxaafadda iyo meel walba intuu ka hadlay shakhsi Soomaali ah oo la dhiibay wuxuu la mid yahay 30 milyan ee Soomaaliyeed oo la dhiibay kana gelgeshay ninkaasi marka waxaan aaminsanahay dalkeena waxaa kale oo aad iyo aad halkan fursad wanaagsan inaan ku helo ay caawiye tahay xildhibaan ka mid ah xildhibaanadeena hadda soo baxay oo horey ugu sii ahaa geesi ah codkar ah hero ah aan filayo inay ka mid noqon doono dadka soo saaraya xildhibaan musharax madaxweyne u codayn doona waa xildhibaan mahadsanaa la saxabeyn يوم الدعوة جيس كرلب maaragtay dadkeena Soomaaliyeed dadka ugu kalsoonahay kamid noqon doona waxaa kaloo raacinaya oo fursadan caawa ah aan uga badan yahay xildhibaan kale oo isla la mid ah oo birlab ah geesi ah hero ah waa wasiir Cabdiraxmaan Badowaan أحمد بقية ويسوون الله من كان تذكر قول كاكين أنت واحد مرينا ووضع باللفكاس إنه يوحد من يتقبل أي نقبل بالينيان يلا بدل ما مقدرين إنا آلية أربان أريد أوصل دويننا وصابحه ونوجد عينينا وقرب تاجنا ومتعجر سنة مشارك مدحوينا وحنا مرجين إنا إلى كل يصل دوته آلية أربان السلام يا رحمتي السلام عليكم waxaan u yeelayaa markaan Cabdisaaq Shiina oo ah gudoomiyaha Somali Victorian Voice. Bismillahir Rahmanir Rahim. Marka ugu horeysa horta assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Salaan dabale arbaaga qadda magaca waa Somali Voice Victoria horta xisbiga. Talabaad arrinka kana muxaawo meesha tan isugu nimid oo ah taageeridda xildhibaan gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur isla markaasna ah nin u taagan doorashada madaxweynenimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya midda ugu horeyso hadal badan waxaan ma buuxshaa la yidhi raggii iga horeeyaana wixii laga hadli kara ka hadlay hortooda taageeridda waanu u fadhinaa waanu taageeraynaa waxaanu leenahay haddii khayr kugu jiro ilaahay kuu fududay tan labaad laba qodob baan rabaa inaan ka hadlo midna Cabdiraxmaan khusaysa midna khusaysa dadka musharaxiinta ah ama dadka hadda dowladda ku fadhiya waxa weeyaan Soomaaliya waxay qaybsan tahay 3 qaybood qayb waa qolo maamul ku fadhido waxay rabaan ka sameeyaan oo say rabaan waddanka u maamusha iyo qolo tiro badan oo maanta aan uga soo jeedo waxa kan oo macaashadooda dabagala siyaasadda midna aan shaqo ku lahayn qolada saddexaad oo weli aan na sheegi karin oo na sharxi karin waa inta musharaxiinta marka musharaxiinta soo wada qabto Cabdiraxmaan dhowr shay baan aan ku ammaanayaa oo aysan lahayn musharaxiinta kale waa midda ugu horeysa hortooda isagu markastoo meel soo istaago calaamadiisa xisbiga iyo magaca xisbiga hortooda ku hadla midda labaad wax badan laga dhawaajiyey la yidhi Cabdiraxmaan waa la weeraray iyo hebel la sameeyey Cabdiraxmaan nin galmudug ka soo jeeda waa inuu laba calaamo ninka reer galmudugga waa laga helaa xabadu joog inuu yahay iyo doodu joog inuu yahay waa in labadaa laga helaa haddaanu labadaas lahayn
nin reer galmuduga ma aha haddaanu galmudug ahaan lahayna waa hor waxaa la diyaarad raac la ingiriiska aadin ah marka wuxuu meesha kusoo fadhiyaa waa xiliyo reer galmuduga tan labaad oon cabdiraxmaan cabdishakuur aan ku ammaanaya waxay tahay wax kasta oo wax laga weydiiyo ama meel kasta uu soo fariisto sida daacadda ah oo aan laqdaba ku jirin oo aan beeni ku jirin oo ama nin nacayb aan ku jirin buu uga jawaaba wuxuu uga jawaabaa si muwaadinimo leh si xilkasnimo leh iyo si mustaqbal ah marka qofku hadduu meeshaa yimaado wax ka dhiman baaba iska yar oo ah war waddanakan adigu intaas aad la rabto sidee baynu inta isugu nimaadno wax uga bedeli karnaa ama wax uga sheegi karnaa ama wax u qaban karnaa marka waxaan qabaa inuu mudan yahay in la garab istaago lalana shaqeeyo gogoshana loo ballaariyo loo fidiyo intaa markaan kasoo gudbo marka waa intii soomaaliya khusaysay waxayna kaloo u baahannahay sida habrantay xaawadheeda ka muujisay halakan lafkeena inaynu u joojeyso inta qof aan hadda arkayo khudbeynayeen jaaliyada kuwada khudbeynayeen anoo hambaryeynayo laakiin gudaha kan lafkeeya waxaynu u baahannahay howlo badan inaynu ka qabanno oo sida hadda aynu xisbiga ugu istaagayno inaynu u midowno soomaalinimo waddankan joogtan aynu wax u wada qabsano waxyaabaha ugu waaweyn oo ilaa hadda aan jeclahay aan farta ku taagaya waxay tahay dadkaan la yidhaahda saad suudaan way naga dambeeyeen annaga waxaan u yeelayaa markaan mahad xaaji maxamed wasabe laakiin hadda waxaan malaysa dadka soomaalida kulli inay arkeen wuxuu ka digaayay dowlad systemka dalku sii waday waddo khaldan oo kalisanima inuu muddo ka sheekeynayay uuna ka dadaalay waxaan isleeyahay inuu yahay qof aaminsan waxa uu aaminsan yahay inuu marba ku taagan yahay markhaati waxaa ka ah inaan xasuustaa 13 la yidhi aqalka salaadasiina gobolka banaadir markii arrintaa ay soo baxday musharaxiinta kale kulli waa aamuseen waa baqeen maxaan ku yidhi arrintaa sharciga ma qaabilsana ma ogola constitutionka waddanka 54 ayuu aqalka sare ogol yahay in aqalka sare la fadhiisiyo constitutionka wax laga bedelo borosyaas cusub la geliyo dood soomaaliya la geliyo ayay qaadanaysaa wax soconaya maaha laakiin musharaxiinta kale waxaa malaysaa inay arrintaas kale waa adag tahay inaad communitygaaga iyo deegaankaaga aad ka hortimaado tiraay waxaan wax saxa ma ah sharciga ogol yahay marka xildhibaanada cusub ee baarlamaanka waxaan leeyahay dowladnimadu waa sharci waxaan u baahannahay oo dalkan u baahan yahay macquul ma aha hogaamiyaal sharciga dalka u yaalla aan raacaynin in dalka lagu aamino waxaa muhiim ah dalka in lagu aamino doorashada soo socota cabdiraxmaan cabdishakuur oo aan ka arkayn in muddo ah inuu sharciga dalka mar walba hala raaco lahaa baarlamaanka u fiican tahay aqalka sare u fiican tahay dowladnimada u fiican tahay ummadda soomaalida u fiican tahay ma dhici karto waxaan waa dowladnimo aan sharci shaqaynaynin ma shaqaynayso waxyaalaha umad ahaan haystee ayay ka mid tahay arrintan kaligisanimada dowladda federaalka arrin ku eg ma aha dowlad goboleedyada soomaaliya waa la socotaan dhul soomaaliya ee soomaali maamul soomaaliya ka jiro oo sharci la raaca ma jiro haddaan sharci la raacin waxba inooma hagaagayaan waxaad maqlaysaa madaxweyne hebelow soo daa hebel maxkamad baa xitaa maxkamad ma xirin isagaa xiray haddana isagaa soo daynaya ma aha madaxweynaha ka hadlaya madaxweynaha dowladda federaalka keliya madaxweynaha jooga puntland kan jooga somaliland kan jooga soomaali state ethiopia soomaalida meel kasta ay joogto sharcigii waa nagu adag yahay dowladnimadan ma kici karto haddaa waxaa lagu heshiiyo oo miiska saaran aan lagu wada shaqayn ani marka waxaan kao communitygeen halkaan aan aada ugu baraarujin lahaa waddankan aan ka qayb galno inaan fahanno iskuullada consuls iskuullada aan ka qayb galno meelaha boorarka aan ka qayb galno aan ka qayb galno hadda gabadha soomaaliya doorashada u cararaysa dad soomaalida qaybto inaysan u arkaan waa xoogaa challenge qofka xisbi ka soco waa adag tahay laakiin gabadha haddii guulaysan weysa xataa waxay niyadda u dhisaysaa ciyaalka yaroo soo kacay mustaqbalka marka inaan systemka aan fahanno waxay naga anfacaysaa dalkanagii sababta dad waxaan nahay dowlad yar baan nahay 6 sanaan jirnaa dowladdu waa yar tahay 6 sanana in badan dagaal marna waa dagaal baan ku dhex jirnay civil war marna dowlad waxaan nahay military ah marka qofka uu yidhaahdo waxaan sax ma aha dadka u carunayaan ama waxa lagu arkayaa qof maaragtay qofka uga soo horjeeda wax kale marka cabdiraxmaan dadaal badan ayuu soo sameeyey
dadka inuu wax badan ka dhaadhiciyo inuu sharciga dadka fahansiiyo inuu dowladnimada dadka tuso wax badan ayuu qabtay waxaan rabaa inaan halkaa message uga diro qolooyinka tiktok Soomaaliya la yiraahdo oo heritage ururka heritage ka mid yahay BDCR oo Puntland ay ka mid tahay in ay bilaabaan bal dadka Soomaalida ama qurbaha joogaan ama gudaha joogaan oo dadka in la weydiiyo maxaa rabtaa dowlad noocee rabtaa waxaad u malaysaa qofku inuu taageerayo waxaan dad ugu jirin isaga ama dalka dad ugu jirin uu ku taageerayo qaab ama si khaldan dad wax loogu sheegay oo si khaldan dowladda loo tusay ama qaab caadifaysan oo qoyska uu maartay uu isleeyahay intaan suurad baatiyin marka waxaa habboon in la bilaabo dood ah Cabdiraxmaan waa sameeyay taas 5 sano ugu dambeeyay tii ka horreysay wuxuu ku dhex jiray inuu yiraahdo war dowlad waxaan u baahannahay dimuqraadi ah oo sharcigu sareeyo maxay tahay anaga halkan aan joogno maanta dalka Australia waxay tirsanoo aan dahraano oo noo imaanayo warayna sarkaan noo imaanayo maxaa taamaanay dad yar waa nahay dad u taga waxyeeli karna ma nihin laakiin waxaa la diidayaa maadaama Australia in waxa la dhageysto fikirkeena la fiiriyo dowladdu ayna maqasho haddii dowladdu saas sameyn weyso shacabka Australia ka xumaanay arkay inay dadkan xaalado dayacay loo dhibaateeyay marka waxaan rabaa dadkeena Soomaaliya inaan baldood bilaabno ah walaal waxaan codsan lahaa heritage hay'adahaas Soomaaliya qaabilsan inay bal dadka weydiiyaan ummadda Soomaaliyeed iyo sii socoshadeena ninkaan waa nin fahansan arrimaha gudaha sida wax looga qaban karo oo dadka la tashanaya talada dadkay ku jirtaa dadka maaha in la tashto waa muhiim Australia waa la tashanada dad ka sheegano annaga community yara arrimaha dibadda uu fahansan yahay si u shaqeynayso geopolitical waxyaalaha lagu xeeran iyo dib soo socota iyo jaalada dowladda ka jira marka baarlamaanada waxaan leeyahay baarlamaanka cusub ee Soomaaliya waxaan leeyahay walaalayaal dalkan qof sharcigiisa ilaalinaya loo doorto idinkan ixtiraam baa helaysaan ilma bahaldilaayo 5 sano waxaa soo marteen bahaldil ah oo ma aragtay xildhibaanada lagu ciyaaray baarlamaanka waxaan la weydiin gudoomiye baarlamaanka maalin cad laga qoorta qabto laga tuuray wadankan saaf ma sii socon karo inuu burburo kala tago iyo inaad u doorataan qof sharciga ilaalinaya sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kale assalaamu calaykum وعليكم السلام أدبو مهتسية هاي محد حاجي محمد ورسمي وقتي أدبو عريري لوية هاي عشان نوعي نوضي يرسمت هاي عشان عاوة ضربه وضوء عن كعيان مركز سياسي درديد عشان وحكا سينوت سالا إن بدأنا واسكسي وضعنا دمركا ويسير كورا كرام وينوصي بلا بكرام سي أي لوية رات وقتي أدبو مهتسية مركز وحلوية ريا نبضون محمد فارح marka ugu horeysa intaana wax kala qoran waxaan baryayaa allaha keligiisa ee ilaah kaloo xaq lagu caabudaajiro ee ilaah kaloo wax la wadaagaajiyo ee ilaah kaloo 99 magac oo asmaa'ul husna jiro ee isagu wax walba ee wax walba waxaan weydiisanayaa hawshayna caawa u fadhino aynu meeshaas isugu nidno sidaynu doonayno iyo sida dalku doonayo iyo in ilaahay nooga dhigo oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur gaafay inta haddaan ka baxo hadalladii waa la iiga wada horreeyey anna waxaan ku metelayaa hadalkan oday Soomaaliyeed oo dhexdhexaada oo Soomaaliya oo wanaag badan soo joogay wanaag badanna alle ka sugaya waqtigiisa inuu ka qayb qaato doonaya sidaa daraaddeed hadalladeeda waan soo gaabinayaa waan qaybinayaa baarlamaanka Soomaaliya horta ninkii wanaag sugayo inay indhaha saa u taagtaagno oo wixii dhacoon haddana dhaafin maaha ninkii wanaag sugayo indhaqa shuquus wuxuu leeyahay bilad geesi 7 taliye ayuu ku soo raagay
7 madaafiicdii cuslayd ee da' 30 ninkii hogaaminayay waa sooma jeedsaday waa Soomaali waa siman haddana waad aragteen kuwa aan waxba ogeyn oo xaqdarra isku bahaysto ay horjoogsan hageed markay idinku joogtaan cabdiraxmaan cabdishakuur baynu u fadhinaayo waagu isagu shaqada qabtay aan aragnay horta arrintaasi way jirtaa baarlamaanka Soomaaliya fariin baan u diray cabdiraxmaan ama madaxweyne kale hadduu soo baxana meeshuu ka soo baxay qabiilku ka soo baxay fariin baan u diray Soomaali weyna fariin baan u diray baarlamaanka fariin baan u dirayaayo war baarlamaan yahow addoon la iibsaday ma tihin si kasta ku soo baxo dalkan inaad baarlamaan u noqotaan baa laydin soo xiray carafka iyo alla idin soo degay ilaahay baan idinku dhaariyey oo ciiddaan idinku dhaariyey oo dadka xaqiisaan idinku dhaariyey baarlamaanka madaxweyne cid kasta aadee madaxweyne aad fiirsateen oo cabsi la'aan ku soo xulateen oo laalush la'aan ku soo xulateen ood mustaqbalka ku soo xulateen ka dhex doorta oo ha cabsanina ninkaas anigay taageer buu meesha kugu hilinayay kuma iibsan Soomaali baad tahay degmaad matalaysaa reer baad matalaysaa Soomaali baad matalaysaa dastuur baad matalaysaa nabadgelyaad matalaysaa arrintaasaan baarlamaanka arrintaasaan idin gudbinayaa waa baarlamaanka hadda la diyaarinayo haddaad wax kale iyo wax ku sugaysaana gorayadii carruurta ukooyii laga xaday waad aragteen gorayadu mid nin ahoo baalacad iyo waxay goray cawrba hallayyaaba isugu jiraan kolkii ay soo daaq doonteen dhagaxay cuntaayo laga xaday ukumihii meeshii bay yimaadeen way ka waayeen kii ninkaa waayey gorayo halkan ku quuso gorayo waxaad ku quusataa oo ay iska qosnay aad ku qosaa in dhaqasha ku quusto cabdiraxmaan cabdishakuur fariin baan u diray cabdiraxmaan oo dadkan caawa halkaa fadhiya eed ka soo hadashay waa dad Soomaaliya reer weliba wuu ku jiraa adigana barasho kaagama marha oo musharaxiinta ninka ugu degdeg badan ee qaladka dhaca ka hortegayay baa tahay waxaad tahay axadkii si sharciya wax ku sheegay musharaxiinta kale hoteelada iska joogaan weli nin intuu bulshadiisa iyo sharciga is hortaagay sidan ma ahee sidaas ayaa la yidhaha weli kan soo bixi iyagoon ceeb lahayn haddana waad ka dhaqso badnay waanad ka ilaalin badnay waanad ka feejignay in lagu doortaad marka mudan dadka yagan caawa meesha fadhiya waxaan ugu fadhinaa in lagu doorto ilaahayna waan la kaashanayna kolleybana nin waliba dad ula hadlo oo uu yidhaahdo cabdiraxmaan dooro uu heli karayo waxaa kaloo lagu dooranaya adigu xisbi baad leedahay laguma soo qabo xisbi sharciyeysan baad leedahay laguma soo qabo xildhibaan baad tahay geesi baad tahay nin hadli og baad tahay nin sharciga ilaalinayaa tahay nin dimuqraadiyad dhowrayaa tahay nin dhalinyara baa tahay in lagu doortaad naga mudan ood Soomaali ka mudan
قبيل عبد الرحمن كدش نفرين بردري قبيل عبد الرحمن كدش وهدي عبد الرحمن ودورته حق درها لند وجهك سنين أو هارننا قال كعين وقوا for example كان نجتني على النقل dadka Soomaaliyeed waa walaalo nin bedel buu ku dhashay nin degelkiisa la qaban kara ma jiro arrintaa horta ma garatay nin degelkiisa la qaban kara ma jiro madaxweyne kale oo heer goboleed ama heer tuula dad yahow hacaay heerkiisa madaxweyne hadduu degmo madaxweyne u yahay iyo hadduu gobol u yahay عبد الرحمن بابا كبوت لا ربناي عبد الرحمن غير كيس الله هذا شن الريموت كي كذا عبد القادر ما مغرس هذا ما مغرس هذا عيب أورانيا ماشى بوصا ها كلنا بطل عسكت على النقطة هذانا كل اللي تباليها كنت معطاه هذانا ويعينوا ضدك عداليين مويانه عبد الرحمن يهمني الموقف فين كان أرنتها ما مرة شيء أرنتها ويا حتى مدحنا حتى واحد هيست وين وحياها أذك أتكون دمتي ما إلا شيء ورب مساعد كي يقول لك بواعي من أحمد وبان سيدي لو دي لها وصلنا هذه عدم على إنك هي أيام مركز دلوقتي waxaan ku yiri warmaadina tani maalintii 17 sida aan baad lahaydeen waad aytamayseen hoteelada ka aytamayseen dadka dhacaysa ka aytamayseen meen baad jeedaysaan war waxa idin hortaaga ma garanaysaa waxaan Axmed Madoobe 99 iyo 16 gabal ayuu representative maadigoo ceel ka yimid baad dalacaysaa وخلط وسوق خلط معه من هو وهذا من هذا وهذا أنت ما بتصور واحد وأرفع حضرتك الكرسية دقيقة فكرية شيء أظن خرب الجار ما لك قاعد أنت كنت رئيس الشباب وحوي كلمه عبد الرحمن هكو حماري gabadh iyo wiil oo naga dhaxeeya hadduu madaxweyne noqdo Jabuuti buu ka dhaxeeya oo inala wadaagta Itoobiya kuwa jooga inala wadaaga kuwa Kenya inala wadaaga waa nin Soomaali oo madaxweyne hadda waad ogeydeen oo dowladda canshuurta maxamar bay ku noolay hotel walba wuu ceyraya وروح اسمي في عيني وما تكاد هشام ما فعنا أولاً عبد الرحمن كي من أنت صغير سومالي وين بانلاه الدنيا ما ربع لها هدول نفو وناكسية أو ملح وناكسية أما الحلمان وناكسية أما وسيل وناكسية أما عرفاء وناكسية كلها حلبك أصلا أنا بالفعل أدو مع السيحي نبطون محمد فارح مركنا وحانو يا إمامك يا إمام أحمد ترحو هل صوته يا إمامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka meesha isugu yimiday waxaan u malaynayaa dadka qabanqaabiya meesha baasha
meeshii laga rabay kamay saarin imaam ma jiro ugu dambeeya meesha u xamaysa la geeyo laakiin waa loo dul qaadanayaa hadda imaam waxaa la arki jiray meesha ugu horeysa uu ka hadlo waase waxaa waaye waa dhacay waa qabadka say ku qabataa weydidaasna waxaan leeyahay dhammaan soo dhawaada waa kaftan taasine marka waxaa waaye anoo cabdishakuur waa laga hadlay wixii uu qabtay iyo waa uu qaban doono laakiin anigu waxaan rabaa inaan waxyar ka hadlo ah markii la doorto haddii la doorto insha allah waxa aan rabo inuu qabto horta waxa alla wixii dembi la galay inuu dadkii dembiga galay in maxkamad la geeyo si aan qof dambe oo dadka ugu xadgudbin oo dadka xaquuqdooda loo ilaasho taas markaan ka tagno cabdiraxmaan waxaad moodaa in la doortay in dadkeena meesha jooga waxaa waa yidhi gaamin nin doortay doorta ha u dhaadeen marka waa doorayaysaan leena insha allah waxaan umaleeyaa waa gebagabadii cashada alla cuno wabilaahi tawfiiq waxaan u yeerayaa inuu noo soo ganaanudo cabdi ow sahal aan idhaahday adeer cabdi ow sahal waa adeerkeed waxaan mahad ugu celinayaa qabanqaabayaashii xafladan quruxda badan leh marka waxaan rabaa inaan taageeradeyda soo qadimo anigu aad baan u taageersanahay guddoomiyaha xisbiga wadajir ahna xildhibaanka cabdiraxmaan cabdishakuur sababahaan ku taageersanana waxaa ka mid ah waxaan arkay inuu sifooyinka hogaamiye uu leeyahay sifooyinka madaxweyne inuu leeyahay sidaas darteedaan ku taageeray cadifad kale uma taageersanin waayo waa nin ka dhisan cilmiga maadiga iyo islaamka ka dhisan weeye waa nin cadaaladda u dhow waa nin xaquuqda u dooda waa nin codkala waa nin haybad madaxweyne leh waa nin mar kasta hadda sidaad maqlayseen wuxuu ku celceliyaa hayskiisu waxaa weeye cadaaladda waa inay shaqaysaa oo cadaaladda in la ilaaliyo oo mar kasta uu ku celceliyaa haddana waa maqlayseen waa in dastuurka la ilaaliyaa uu mar kasta ku celceliyaa waa nin u dooda xaquuqda dadka la xaqiro u dooda weeye intuu 5 sano oo xaquuqda u taagnaa oo balku mar kasta u dooda weeye marka la xaqiro marka siyaalahaas baan yaan ku doortay oo aan u arkay inuu nin u qalma yahay hogaamiye sifooyin hogaamiye u leeyahay intaas markaan uga baxo waxaa la ii idmaday inaan xaflad soo gabagabeeyo waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dadkii soo qabanqaabiyey iyo dadkii ka soo qayb galay waa mahadsantihiin ilaahay ajar iyo xasano hayn ka siiyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin shirkuna waa xeeyihiin waa xeeyaha shirkuna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markan waxaa qadka si toosa ugu jiro musharax madaxweyne ahna hogaamiyaha xisbiga wadajir xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame
joogtaan iyo Soomaali ah oo dalkiina ka tegay طبعا qof kastoo Soomaali anaga nagamida halkaas duruuf ayaa geysay dalkan duruuf ayaa dadka ka wada haysay qof walba dalkiisa iyo jecel yahay saamaynay iyo deegaankiisa intaba waxaan rajaynaynaa ilaahi subxaanahu watacaala in dalkeena nabada iyo dadkeena nabada iyo deegaanadeena nabada in ilaahi subxaanahu watacaala uu na tuso runtii aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa mar kale isku soo baxaas iyo isku imaashahaas iyada ah iyo maaragtay taageerada aad mar kastana taageeri jirteen mar kastana aadna garab taagneedeen runtii waxaad taageeraysiin keliya ma aha shaksi la yidhaahdo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu u taagan yahay ayaan filayaa inay tahay waxaad taageeraysaan oo ah in dalkaan la ilaaliyo midnimadiisa in dalkaan la ilaaliyo inuu noqdo dal dastuurkii sharciga uu sarreeyo oo aanan qof sarreynin waxaad xukumaaya dalka ama sarreynaya institutionada yihiin taasoo og tihiin in sababta Australia tahay oo ay u horumarsan tahay oo dunidu horumar ay ku jirta ay tahay sarreynta sharciga iyo in maaragtay dastuurka dalka uu yahay waxa uu sarreeyo qof kasta weyn sidaa la socotaa wadamadaas galbeedka oo Australia ka mid tahay waxyaalaha ay ku hana qaadeen ay ku baraareen ma aha inay technology leeyihiin ma aha inay dhaqaale leeyihiin ma aha keliya inay xoole iyo xoog haystaan ma aha laakiin xukunkooda waxay ku sareeyeen sarreynta sharciga iyo ilaalinta dastuurka qof kasta oo muwaadin Australiyaana arrintaas ayuu u taagan yahay waxyaalaha tusaalaha usoo qaatay markaa Soomaalida oo tusaaleynayo waxaa kamid ah hadda ka hor in wasiirka difaaca Australia uu beynaya inay taliyayaasha ciidamada ee dalka doorashooyinka ka wareegeen si aysan u muujinin inay la jiraan xisbiga talada iyo oo tartamaya ciidanka inaysan u muujinin waxa dareenka ugu yar oo la cabiri karo dalkan waa ogtiin ciidankii aan isticmaalaya awooddiisii oo meel kasta loo isticmaalaya dadka lagu caburiyo in deegaanadii lagu cadaabiyo dadkii lagu kala qaybiyo ciidankii la rabay inuu ilaaliyo dastuurka iyo nabadgelyada dalka inuu sugo keliya iyo shaqadiisa waxaa loo adeegsan siyaasadii waxyaalaha runtii aan u hamtaagayno oo u taanaynay kamid tahay in aan gaarno heerka Australia gaartay oo ah halbeeguna ma aha dhaqaalaha Australia iyo teknolojiyada iyo baaxada dhulkeeda iyo kheyraadka ay haysta waa nidaamkeeda siyaasiga ah oo xasiloon oo ana asaas ku yahay sarreynta sharciga iyo dastuurka dalka oo asaas ku yahay taasaa rabna anagana soo koobiyeyno laakiin intaan Yurub tagnay Australia tagnay oo America aan tagnay aan weli sii wadno qabyaalad ama aan sii wadno kalitalin ama aan sii wadno xoog sheegasho ama aan sii wadno qabiil faan runtii waxaan noqonaynaa dad aan wax ka baranin oo waayaha nolosha iyo umadaha horumarka aan noolahay aan wax ka baranin Soomaali haddaan nahay waxaan ku eedeeyaa dadku nooyantoo inaan nahay meelo xirxiran oo keligood iskula hadlaan luqaday keligood iskula hadlaan faan ay keligood ka dhexeeya ee aanan ka faa'iidaysan umadaha ay leeyihiin ka dhexeeya inaad dalka ay joogtaan aad ka faa'iidaysaan hadday tahay horumarkiisa hadday tahay inaad ka faa'iidaysaan faa'iidadaasna aan dalkeena aad usoo rartaan oo dhulkeena aad ugu horumarisaan aan idin rajaynaya waxaad u taageereen xorriyadda la ixtiraamo u taageerteen waxaad u ixtiraamteen oo kale u taageeraysaan qiyamka ah in sinaanta la ilaaliyo sharciga hoos aado in dastuurka uu sarreeyo in dadku si dimuqraadiya oo keliya u dooran karaan madaxdooda u dooran karaan waxaasoo dhan waa waxaan ku taagnay shantii sano oo soo dhaaf oo aan diidnay dalka in gadaal lagu celiyo in gadaal lagu celiyo qofkiisa la yeelo qaranka uu ka sarreeyo qofka hay-adaha dastuuriga ayay ka sarreeyaan dadka hadda waa arkaysaa dalkii waxaa ka socda doorasho la leeyahay anaa soo oqolay anaa gadisay anaa gatay la leeyahay anaa gatay anaa gadisay doorashadaa dalkii ka socda sidaasay tahay si loo ilaaliyo wadajirka iyo xasiloonida dalka annagoo murashaxiina waxaan ogolaanay dad nala tartamaya doorasho ay soo gateen ay soo gedisayna annagoo aaminsan shacabka Soomaaliyeed ama xildhibaanada soo saartay in wax soo qooday oo isaga soo gatay oo soo gedisay waxaa kaaga sii daran waxa uu isticmaalay hantida uu isticmaalay waa qaran oo ah cashuurta dadka masaakiinta laga aruuriyey iyo qaaraankii ama deeqdii dibadda ka timid oo isticmaalay kabacdina waa kuwi anaa soo saartay anaa yeeshay anaa samaysay
sidaas ayadoo ogaa waxaan in qaabka u galno sharcina si aan u ilaalino wadajirka iyo xasiloonida dalka dadka Soomaaliyeed oo aaminsanaya xildhibaanada ah inay taas kala dooraan weligoodna in wax soo boobay kama faa'iidin oo ay ku gedi jireen idinkan waxaa idinka rabaa inaad idinaad dibadda jooga teegaa leedihiin qaraaba leedihiin dada leedihiin Recording in progress. Recording is being recorded. qof wax soo dhacay ama soo boobay oo hantidu ku soo dhacay ku soo boobay kii qaranka ama diintooda dowlaadka ay tahay inuusan ka faa'iidin runtii in aan ka wada shaqayno oo la gaaro heer aan gaarno qofku inuu isaga isu kalsoonaado oo aamino inuu kartidiisa inuu aamino inuu dadnimadiisa aamino inuu wax dadka hor imaanaya inta waxaana waqtiga waxaana isbedeli karaa ay tahay yaan rajaynayaa in la yidhaahdo mar kale waxaan iga mahadcelinayaa كمشاهد تغييرات التغييرات هي الحرية الديمقراطية الإسرائيلية اليوم سلامة هي الدستور المستقبلية التغييرات وذلك أول الدين هي كالتلزيمات يطبق التعقيبين نمشي نفس الموجود على الأكيدين والمكاتيك إلى واحد وقالت نوعية إن من الملك والجيش الصومالي لازمه إن دول النمور الصومالي لازمه إن ذاتك الصومالي لكالتلزيمين في حرارة التلزيمين كالسودين ولا بسوء الأولاد والسوء وأول خلق ولا بسوء غلط السوء ضد بطشة أو أقصى كريتي لا ترى لا تريد أن تقول شيء هذا كلام ذكر واحد كريتي تعلم في وضع ضد كلاسو على شاب وعي كتاب ذات وراني هذه شرطي هذه عادي فإذا أنا خاصة هذه الدين أو الدين والسلام عليكم.